nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xadiid wakiil ahaa maalmihiina inagu soo noqnoqonaya maalinta ugu fadli badan buu nebigu yihi waa maalinta jumcada. 5 khasladood bay jumcadu maalmaha kale ay kaga fadli badan tahay. khasladda koobaad buu nebigu yidhi abuna aadam calayhi salaam maalin jimco ayaa nebi aadan la abuuray, maalin jimce ayaa jannadana la geliyey, maalin jimce ayaa jannada laga soo saaray. maalinta jumcadii waxaa ku jirta buu nebigu yihi saacatulijaaba, saacad ilaahay uu ducada qofka ducaysta uu aqbalo. maalinta jumcadana waxa uu nebigu yihi saacadda qiyaamada ayaa dhici doonta. marka bishii rabadaan iyo jimce waa nicam weyn weeyaan, ilaahay inaan ugu mahadino weeyaan. habeenkii ugu horeysay bishani ay bilanaysay waxa uu nebigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam, iclaan ayaa xagga ilaahay ka imanaya, malag baa dhawaaqayo odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil, warkii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrkee soo qaabil. waa bishii khayrka weeyaan, waa bishii naxariista weeyaan, waa bishii dembi dhaafka weeyaan, waa bishii naarka xoraynta weeyaan. malag baa odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil, kii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrkee soo qaabil oo soo jeeso, oo cibaadada ilaahay soo qaabil, oo salaada taraawiixda soo qaabil, oo qur-aanka akhriskiisa soo qaabil, oo kahratu lkhayr, bishani waa bishii khayrka ajarka badan laga helaye soo jeesa buu leeyahay malagaasi, soo qaabil. wayaa baaqiya shari aqsir, kii dembiga iyo fujuurka iyo macsiyada iyo xumaanta ku dhiiranaya mar walba xagga sharka u degdegayow, bishani bishii ilaahay la caasinaye dembiga la laaqanayay ma ahayna ka joogsa buu leeyahay oo ka gaabso. waa bisha nebigeenu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi haddii rabadaan uu yimaado albaabada jannada ayaa la furaa, wa fii riwaayatin albaabada raxmadda ayaa la furaa. albaabada naarahana waa la xidhaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam, maradatu shayaaiinna waa laga xidhaa bini aadanka. waa bisha keliya ilaahay jala wacala qur-aanka uu ku sheegay magaceega shahru ramadaan. waa bisha maaragtaane la yidhi waa bishii qur-aankuna uu soo degay. waa bisha keliya ee nebigeenu uu yidhi habeen kasta oo bisha rabadaan ka mida buu nebigu yihi waxa uu ilaahay leeyahay addoommo uu naarta ka xoreeyo. waa bisha keliya ee la sheegay in albaabada jannada la furo. waa bisha keliya ee la sheegay in albaabada naarahana la xidho. bal tiriya fadaa'ilkeyga bisha rabadaan fadligay leedahay. waa bisha keliya ee nebigu uu yidhi maradatu shayaaiinna waa laga xidhaa bini aadanka. waa bisha ay ku jirto habeenkii weynaa ee qur-aanka ilaahay uu sida gaarka ugu ammaanay ee uu yidhi inaa anzalnaahu fii laylati اlqadr. 10ka dambana allah ina gaadhsiiye. waa bil aada u barakaysan oo xurmadeeda in la siiyo ayay mudan tahay bishani. asawmu junna, soomku waxau nebigu ku sheegay fadaa'ilkiisa kadalika inuu yahay gaashaan. asawmu lii wa ana ajzi bihi, ilaahayna waa kii lahaa xadiis alqudsi, soonka aniga ayaa iskale, anigaana addoonkayga ka abaalmarin doona. waa bisha uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yidhi saa'imku intuunan afurin waxa uu leeyahay duco la aqbalo. waa marka icdaadu ay sii dhacayso eed afurka u diyaar garoobayso, xilligaa ducada waa la aqbalaaye baahidaada ilaahay u sheego. soonku waa gaashaan. asawmu junna, naartuu gaashaan kaaga noqonaya, shahawaadkii nafta ayuu gaashaan kaaga noqonaya, macaasida ayuu gaashaan kaaga noqonaya, xanuunada dakhtaradu ay daweyn kari waayaan ayay bisha rabadaani ay daweysaa. bal dakhtarada waraysta oo dhahada bishee baad ugu shaqo yar tihiin, waxay ku odhanayaan bisha rabadaan baan ugu shaqo yarnahay. nin docteera oo maalin ka hadlaya ayaa yidhi bishii caafimaadkaa timiday, bishii dadku ay bogsanayeen baa timiday. waayo baa lagu yidhi wuxuu yidhi bishaa cid noo timaada maba aragnay buu yidhi, dadka bukaanku way yaraadaan. waa bishii caafimaadka.
waa bishii ilaahay tabaaraka wa tacaala loo dhowaanayey waa bishii dembi dhaafka man saama ramadaana iimaanan واxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbihi bishaa ninka sooma buu nebigu leeyahay maalin kasta oo bishaa ka mida ninka sooma buu nebigu leeyahay dembigiisii hore o dhan waa loo dhaafaya man saama ramadaan bishaa ramadaan ninka sooma iimaanan isaga oo iimaan leh oo yaqiin leh oo garanaya amarkani inuu yahay amar alle xaggiisa ka yimiday ixtisaabna waa maxay ajarka iyo hawaabkana ilaahay tabaaraka wa tacaala ka dalbayo ilaahay ka rajaynaya inuu ilaahay ka abaalmariyo dembigiisii hore oo dhan waa laga dhaafaa buu nebigu uhi calayhi الsalaatu wassalaam man qaama ramadaan iimaanan واxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbihi ninka bisha ramadaan salaad taraawiixda u kaca buu nebigu leeyahay calayhi الsalaatu wassalaam isagoo ilaahay ku kalsoon oo iimaan qaba واxtisaaban ajar iyo hawaabna ilaahay ka dalbayo ilaahay ka rajaynaya ajar inuu ka siiyo cibaadada isagana dembigii horay uga dhacay oo dhan baa laga dhaafaa buu nebigu uhi calayhi الsalaatu wassalaam waa bisha uu nebigeenu yidhi calayhi الsalaatu wassalaam haddii midkiin uu afuraayo timir ha ku afuro buu nebigu yihi timir haddii uu timir uu waayana biyaha cad ha ku afuro buu rasuulku yidhi waa shareecadda islaamku waa cajiib labadaana dawaa ku jirta ogow timirta muxuu nebigu timirta u horraysiiyey waxaa la yidhi cuntada ilaahay dhulka uu ka soo saaro oo dhan mid walba fitamiga ku jirta ayaa timirta o dhan ilaahay ku abuuray baa la yidhi hilibka fitamiga ku jira timirta waa laga helayaa caanaha fitamiga ku jira timirta waa laga helayaa bariiska fitamiga ku jira timirta waa laga helayaa wax aliya waxaa nabaataat iyo khudrawaat iyo maaragtana nicam ilaahay bini aadanka uu siiyey cunayaan mid walba gaar ahaan fitamiga si gaara iyada loogu abuuray ayaa ilaahay intuu soo jamciyey baa ilaahay timirta inoo soo dhex geliyey timirtu waa nicmadda muslimiinta ilaahay khaaska uga dhigay waana zaadkii muslimiintu ay diinta caalamka o dhan ku gaadhsiiyeen asxaabu muxamed salى اllahu عalayhi waalihi wasalam waradia allahu canhum ajmaciin markay risaaladda muxamediyada ay xambaarayeen ee adduunyada gaadhsiinayeen zaadkay isticmaalayaan wuxuu ahaa timir buu ahaa timir mana xumaato taariikhdeeduna ma dhacdo saalixiintu waxay odhan jireen aqalka timir aynan oolina faqri baa aqalkaa yaalla markaa buu nebiguna leeyahay calayhi الsalaatu wasalaam ninkii soomayow haddaad soontid buu nebigu leeyahay kiina afuraya timir ha ku afuro hadduu timir waayana biyaha cad ha ku afuro biyaha cadna waa daahir buu nebigu yihi oo macdada jirhkaaga jeermiskii ku hadhay oo dhan bay bannaanka usoo saarayaan